kulankan uu noqdo kulan ay bangiyadu isku bartaan xiriir wanaagsan dhex maro sida hadda saacadii koowaad aan ku qaadanay business cardada la isweydaarsado contactiska la kala qaato dadka isku fieldiska ama departmentiska ah xiriiro wanaagsan inay dhex maraan aan ugu talagalnay waxaan kaloo aan ugu talagalnay inaan xoojino xiriirka ka dhaxeeya shaqaalaha iyo madax qaybeedyada bangiyada ka dhaxeeya association kan uu abuuri karo deegaan fiican oo ay wadaagaan bangiyada Soomaaliyeed iyo hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliyeedba deegaan fiican iyo ardaa fiican oo ay wadaagi karaan inuu yahay baan aaminsanahay inta ka sokow bangiyadu waliba bangiyada ka abuurma wadamada ka soo baxay dagaalada ka sokeeye post conflict countries ka la yiraahdo bangiyada ka abuurma waxay leeyihiin oo ka hor yimaada duruufo fara badan waxaan aaminsanahay bangiyadeena oo laga yaabaa cimrigooda ugu badan inuu 10 sano ku dhow yahay inta uu jiro qaarna ay hadduun sanad ama 2 sano ay jiraan haddana in ay wax badan u qabteen mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba waxaan aaminsanahay ma aaminsaniye ay dhab tahay in ay bangiyada Soomaaliyeed abuureen shaqageyn badan ay abuureen ayaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay in ay bangiyada Soomaaliyeed inoo abuureen meel aynu lacagta geysan karno oo dadka Soomaaliyeed kuwa haysta oo dalay ah iyo ku dalayihba in ay meel ay lacagtooda dhigan karaan ayay inoo abuureen iyaga oo duruufo adag ku jira waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo xafladan quruxda badan sida looga soo qayb galay intaana waji oo isbaratay ujeedku wuxuu yahay marka hadii la soo koobo dadka waxa markaad bangi tagto waxa arkaysaa dadka frontline tellers kali arkaysaa marka shirarka tagto waxa arkaysaa dadka madaxda oo directors kali CEO iyo wixii lamid arkaysaa marka ujeedku wuxuu yahay caawa inay is arkaan oo isbartaan dadka tiirarka u ah bangiyada oo shaqada wada waa dadkan meesha fadhiya caawa dadkaas inay is arkaan isbartaan contacts kala qaataan iyaga xiriiraan howlaha isku fududeeyaan SBA wuxuu dhisan tahay inay isku xirto bangiyada marka sida bangiyada isku xirayso waa qayb kamid ah in la isku xiro dadka maamulada bangiyada wada dadkaas in la isku xiro ujeedkaas kaliya aan kala hayn maxay hadaf kale ma jiro caawana ma sha Allah si fiican ayaa la isku bartay hadii marka aan feedback helno in miradhal ahayd xafladan waa ku celi doonaa hadii la yiraahdo maxay waxba laga faa'iideyn waxay noqonaysaa meesha lagu ekeeyo idinka idin deynina taas